kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada barnaamijkeena tiknoolajiyada maanta. Mawduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa vintage tiknoolajiyada maaliyadeed ee ka jirta Soomaaliya. Vintage waa mid ka mid ah tiknoolajiyadaha sida weyn bulshada Soomaaliyeed ay ugu horumartay. Waxay qayb ka qaadanaysaa horumarinta maaliyadeed ee bulshada. Waxay si xawli ah u bedeshay hab nololeedkii hore ee maaliyadeed. waxay qofka u sahlaysaa asagoo oo bangi tagin inuu noloshiisa maareeyo. waxay qofka u sahlaysaa inuu lacag kaydsado qofku asagoo oo bangi tagin. Vintage waxay qayb weyn ka qaadatay horumarka bulshada. waana tiknoolajiyad casri ah oo bulshada si weyn ugu baahnayd. Vintage waa eray laga soo gaabiyay financial technology, waana adeegyada maaliyadeed ee loo adeegsado tiknoolajiyad casri ah. Tani waxay noqon kartaa adeeg lacag lagu diro, lagu kaydiyo. meesha aad horey uga baahan jirtay bangi, hadda waxaad adeegyadaas oo dhan ku samayn kartaa adigoo gurigaaga jooga. Soomaaliya, adeegyadeeda lacagta mobilka sida SAD, EVC Plus iyo Dahab ayaa door weyn ka qaatay kobcinta dhaqaalaha. Suuqa gudaha, qof walba wuxuu dirsan karaa lacag, xitaa asagoo ku sugan tuulo fog oo aan bangi lahayn. Sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ee GSMA, ku dhawaad 70% dadka waaweyn ee Soomaaliyeed waxay isticmaalaan lacagta mobilka, halka kaliya tiro aad u yar ay haystaan akoon bangi. Tani waxay muujinaysaa sida mobilku uga dhigay buundo dadweynaha iyo dhaqaalaha. bil kasta, lacagta la isku diro gudaha Soomaaliya waxay ka badan tahay 2.7 bilyan. Tani waxay tusinaysaa in vintage uu noqday laf-dhabarka dhaqaalaha ee Soomaaliya. sidoo kale, xogaha la helay waxay muujinayaan in dad badan ay hadda door bidayaan in adeegyadaasi lagu bixiyo shilinka Soomaaliga, taasoo muujinaysa kalsooni sii kordhaysa. si la mid ah shirkadaha isgaarsiinta, bangiyada Soomaaliya adeegyadooda maaliyadeed ayaa horumar weyn ka sameeyay vintage. tusaale ahaan, Premier Wallet, Wafi iyo Dahab waxay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin isku dirista lacagaha, kaydinta, iibsiga online-ka. mid ka mid ah horumarka lagu faano ee vintage waa adeegyada biometric sida faraha, indhaha ama aqoonsiga wejiga oo lagu xaqiijiyo macluumaadka dadka. Tani waxay yareynaysaa khatarta khiyaanada iyo xatooyada dijitaalka ah. waxaa muhiim ah in adeegyada noocan ah ay noqdaan heerka ugu caajibsan ee amniga maaliyadeed ee dalka. horumarka vintage wuxuu leeyahay caqabado u baahan in la wajaho, sida shuruucda vintage oo aan dhammaystirnayn. sidoo kale, wacyigelin la'aanta bulshada ayaa sabab u ah in dad badan aanay weli si buuxda uga faa'iideysan. waxaa laga maarmaan ah in la sameeyo sharciyo hufan, dadka la baro isticmaalka si ammaan ah, isla markaana la ilaaliyo xogtooda. vintage ma ahan adeeg kaliya, balse waa fursad weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysteen. wuxuu qayb weyn ka qaatay isku dirista lacagaha si fudud. wuxuu sidoo kale fududeeyay nolosha malaayiin Soomaaliyeed oo aan haysan adeegyo bangi. wuxuu sidoo kale qayb ka qaatay in bulshada Soomaaliyeed ee kala jirta meelaha fogfog ay lacago isku diri karaan, xitaa kuwa miyiga jooga ay lacagahooda u heli karaan si fudud oo ammaan ah. barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaa vintage, horumarada uu sameeyay, guulaha la gaaray. barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn, dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet. si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 544 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh. Somnet Telecom, isgaarsiinta jiilka cusub.